bilaabay Cabdilaahi Aadan Qardajeex oo kamida dhageystayaasha VOWda oo wada ka ah mid kamida baabuurta xamuulka qaada iskaga goosha gobolada dalkan Mareykanka ayaa jeclaystay inuu inala wadaago qiso la yaab leh oo qabsatay isagoo ku guda jira safar uu kaga yimi gobolka Tennessee kuna socday gobolka Ohio. Cabdilaahi mar kaliya ayuu ku war helay gabadh gaadhigiisa ku dhex jirta oo dul taagan isagoo xilligaasi highwayga xawaara sare ku socda. bal sheekadaasi oo uu nooga dhacay aniga iyo Maxamuud Ibraahim Cali wuxuu ku bilaabay. waxaa dhacday walaal meel waxaan soo galay truck stop ah oo shidaalka laga qaato. shidaalkii baan qaatay, gudahan galay kafee baan rabay inaan soo qaato. marka gaarigayga gaari u eg baa isu ag istaagay oo baabuurtan waaweyn ee xamuulka. marka way isu eg yihiin gaariga iyo gaarigu way isu eg yihiin, waa isku kambani. awal waa loo garaysan jiray arbaabada, laakiin maalinka ilaahay amarkii waan ilaaway. gudahan galay gaariga kale marka ninka wata xaaskiisii buu maalinkaas soo kaxeeyey. just waa reer dhan oo guuraya waa macnaha. haa dee baalku sariir dambena waa leeyahay, waa iska guri caadi a moogta. waa garta fridjkii iyo microwavekii cuntada lagu kululeynayana waa ku yaalaan. waa garta marka qoyskaasi shaqana waa ku jireen, waana safar caadiana waa isaga jireen. haye marka waxaa dhacday ninkii iyo naagtii wixiiba gudahay galeen, iyagoo laftirkooda waxbay soo qabsanayeen. anna gudahan galay, gabadhii uu odaygu qabay baa noogu soo horbaxday, macnaha dhinacii baabuurta soo aaday. gaarigaygii bay gashay marka oo waxay mooday keedii. waxba may eegin dhinacyada, waxba may eegine sariirtay tagtay. sariirtaadii seexatay oo gaariga ku saaray. gaarigii bay soo gashay, horay sariirtiisaga tuurtay. haa horey sariirtay tagtay. marka baabuurkuna wuxuu leeyahay bahalo u dhaxeeya darawalka iyo sariirta oo daah camal ahoo u dhaxeeya sariirta iyo steerinkii xaggii gaariga laga wadayey. waa taha anigu gaarigaygaan soo galay, dhinacna ma eegine furahan ku rogay, dee waddadaan qabsaday. waa gartay iyaduna waxay mooday odaygeedii inuu gaariga soo galay, mayba sii welwelinba. waa gartay dee taraaglayaashu waa taqaanaaye teleefon baan iska galay moogta. taraagyadu waa isku soo xirxiraan oo khad lagu sheekaystaa jira. waa gartay groupkii baan iska wacay oo meeshii baan galay oo sheekaan iska qabsaday moogta. haye waxaan maqlay cod ah, baby what kind of language you talking about today? oo gadaal baa ka maqashay xaggii sariirta. waxaa isiri waniho ma maskaxdaada ma waxaa maqashay? ha dee gaariga cidna kuma ogeyn moogta, ani keligay baa wada. waa tahay markaasan baaba lagu yidhuun waa maxay luqadaad ku hadlay? what kind of language you talking about today? gaariguna dee waa guux badan yahay, qof teleefon ku jira xaggana cod baan ka maqlay. markaan wax yar socday oo sheekadii aan sii waday oo anigu groupkaygii baan maba ku mashquulinba. wixii waxaan isiri waa adiga niyo niyadaada waayaan isiri. islaantii oo dee sida dadkan u labistaan u labisane bahalo yaryar halkaa maaragtay ku wadato oo iyo bahal yar oo gaaban wadata. ha waa markaa gabadhu waa gabadh caddaana. ha waa gabadh caddaana, adigu ilaa da-da sodomeeye meelahaas ah. waa tahay waxay soo istaagtay halkan hore ee anigu gaariga aan ka wadayey. sariirtii bay ka soo kacday. daahina way iska soo furtay. haa waa tahay gaarigiina waa socdaa, highwaygu saaran yahay. isla markii way ogaatay iyadu inay khaldan tahay. haya gaarigii bay eegtay oo sijaayadii aan ku tukanayay iyo wixii gaarigii inuu ahayn way aragtay markaa. iyadu way isgaratay markaa. waa tahay mar alla markay aniga ila hadashay baan yaabay oo naxo fijacay. haddaanan naxdin u dhiman maalinkaa nasiib baa walahay. marka xagga dambuun baad eegtay, waxaad aragtay qofku dul taagan. hal marun baan saa u eegaya, islaanti madhaadheer oo dee si u qaawano si fiican u haye anigu dee maba soo qaadan ba, waxaana bini aadam ah. waxaa isiri jim baa saqafka kore gaariga ka soo galay, ma aqaan jim baa soo galaa isiri gaariga. haye marka gaarigu aad buu u socday dabcan. bismillaahi araxmaani araxiim, hadduusan gaarigu ila dhicinba nasiib baan lahaa. haye naxdin leh. markaasaan waddadii baan ka baxay, shoulderkaan istaagay. waxaa shoulderka la yidhaahdaa halkan highwayga qarkiisa ahee markay wax kaa xumaadaan la istaago. waa garta marka bareegii ma hal maraa wada qabatay? macnaha jawaabtaasay ahayd. kalaaj iyo geerkii oon foolla ka dhigay wixiiba waa isku daray. waa tahay wada hal mar. gaarigii taayaradii qiiq baa ka kacay, qiiq bareegyada iisoo uray. haya haye still ma believe garaysni waxaan inuu insi yahay. taagosaa waa iga soo dababoodayadu waxay rabtaa inay dhahdo qalad baa dhacay, raalli ahoobo come down please come down taasi ku haysaa. haye dheg uma dhigine waa ka cararay. haye ma cuudu bilaysatay intaa cararaysay? dee acuudu bileysi ayad kursi yaasiinka waxaan isku darinba ma leh. intaad qur-aanka ka taqaaniba waad iska dhamaysay. in alla intaa aqaani waan akrinayaysaa anoo wax akrinaya dhinaca ka hordaya wixii anigoo dhan badhiis baan noqday. darkiibaaba igu qoyeyba. haye alla rafaad weyna markaanu iscayrsanayno ku dhowaad
tobaneeyo daqiiqo ha waan istaagay naagtii waxaa yidhi horta haytaaban halkaa istaag marka way ii sheegtay waxay tiri qalad baa dhacay gaarigaygii baan mooday naa khaladkaaga mooye waxaan ku yidhi naftayda horta riski baad gelisay waa dhiman gaara dhahda maanta waa cagacadda masaakiinta iyadaama markii dambe u nax meeshii baad dib ugu soo noqoteen markaa ay kaa soo raacday meeshii baan dib ugu soo celiyey haa haye saa ninkii baaba daalac u qabsaday naagtii oo anna i qabsadayoo buuq dhaliyey isna waaba hinaasayba uuba hinaasay oo wuxuu leeyahay naagtan adaaba kaxaystayba war waxaan ku yidhi wax ma kuu sheegaa haddadaa inaan booliis waco iyo inaa iga tagtaan oo naagtaada iga kaxaysato wax ka dhexeeya male maxaa dhacay oo booliis wacaysaayo naagtaydii baabad kaxaysatay see booliis wacda adaaba iga khaldane ani gaarigaa la gadoomi gaaray naftaydiina maanta halis bay gashay hay inaan sharciga ku kala baxno iyo inaa tagtaan oo naagtaada kaxaysato wax ka dhexeeya male naagtii baa la wareystayoo mar alla markaan sheekada uga sheekeeyaa la kala daatay hay waaba wax qoslamo iyo wax kalaa la waay hay dadkani maxa inta badan xadgudubka ma jeclo oo khaladka ma jeclo oo ninkii waa i raaligeliyey